mas-uuliyiinta gobolka Maroodijeex oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Jaamac Xaaji Axmed ayaa garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium ku sii sabootiyay dufcadda labaad ee ku guuleysatay barnaamijka shaqo qaran oo tiradoodu dhan tahay 147 wiil waxaanu barasaabka gobolku halkaasi dhalinyarada uga jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo isugu jirta dardaaran iyo tusaale waxaanu uga digay dhalinyarada Soomaaliland inay u hanjiraan Soomaaliya waxaanu fariin u diray madaxda ugu sareysa ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waddankiina iyo waddaniyadiina aamina waddanka tacab badan baa loo soo galay dad badan baa u dhintay hooyooyin badan baa u goblamay aabbayaal badan baa carruurtoodii waayey inamo badan baa u agoomoobay iyo hablo badan idinku waa yaryaraydeen dhibaatooyinkii aanu soo marray markaa aanu idin laaleegayn beebee baa nalagu seexin jiray casarka ayaa beebee nalagu soo istaari jiray guryaha ka soo bixina qofkii suuqa lagu qabtana inta loo xiiro quraarad loogu xiiraabaa salgeeda lagu xidhi jiray maanta waxaad arkaysaa dhalinyaro leh waana la caburiyey war wixii dalka soo maray waa yararaydeene ma ogidin lug baanu kaga baxnay Hargeysa iyo Burco iyo gobollada waaweyn Itoobiya la miciinsaday hooyo waliba inta ilmeeda dhabarka ku qaadatay ayay daroor iyo dulca tagtay halkaasay kaam ku gashay qamadiyar lagu siiyo maanta ilaahay mahadi baa ku jirtaan nimcada waa inaynu ilaahay ugu mahadnaqnaa dalkeenna waa inaynu aaminaa horumarkeenna iyo nimcada aynu higsanayno waa inaynu ka midho dhalinaa waxaad tihiin madaxdii qarankee berrito waxaa la doonayaa inaad tusaale fiican dhallinyaradiina shaqo qaran ee fursadda u heshay inaad dhallinyarada kale reer Soomaaliland tusaale fiican u noqotaan inaad ku dayataan dadka wanaagsan ee waddaniyiinta ah ee dalkooda jecel ee horumarka ka shaqaynaya waa inaydaan ku dayaanin kuwa corruptionka iyo wax isdabamarinta iyo tuugada ku faana waxaa loo baahan yahay inaynu tusaale wanaagsan dhallinyaradu noqoto oo laga gudbo waxa weeyaan jiilka corruptionka ee loo gudbo jiilka horumarka iyo wadaniyada waxa tagaysaan xaradii tababarka darar weyne 3 bilood carbi sabaad galeysaan waxa loo baahan yahay inaad u dhabar adeegtaan halkaasi waa halka lagu kala shaandhoobo waxa weeyaan marka tababarka la galo ragga qaarna way hadhaan ragga qaarna way soo baxaan waxa laga yaabaa marka bil ku jirtaan in rag badan yiraahdaan gurigii war reebel gurigii ma iskaga noqonaa xaafadii baa malaa ya la xadiis laantu ya samad garan marka laad la isku toosiyo askari aan ku tuurayn oo ku yiraahdo afarta kac ee siriga lagu afuufo rag badan baa xasuusanaya gurigii laakiin waxaan ma rag halka ka muuqda waa rag runtii sharaf iyo karaama ka muuqato marka waxaan idin kula dardaarmaynaa inaad adkaysataan waxa gali doontaan 9 bilood oo shaqo qarana oo wasaaradda dawladda aad la shaqayn doontaan dhalinyaradii sanadkii hore gashay maanta waxay ku jiraan bayroolka dawladda sanadkan qof waliba waa shaqaale dawladeed waxa weeyaan 9 biloodna waa tababar iyo carbis waxa isugu iman doontaan darar weyne dhalinyaro gobollada Soomaaliland oo dhan ka timi Sanaa ka timi Sool ka timi Awdal ka timi Saaxil ka timi Togdheer ka timi dhalinyarada waa isbaran doontaan wax badan baa kala faa'iideysaa dhalinyaradii sanadkii hore darar weyne ka soo baxday mid waliba gobolkii uu ka yimi mooyaane gobollada kale Soomaaliland oo dhan saaxiib uu ku leeyahay maanta hadduu tago qariib ku noqon maayo waxaan idin rajaynaynaa inaad guulaysataan waxa mar walba xasuusataan inaad waddankiina iyo waddaniyada aad ku xisaabtantaan yaa nin beenwaasa oo meel jooga oo kaara lagu ilaaliyo amisom ilaalisa inuu dhalinyaradeenna u gacan haadiyo waa ayaan daro kuwa ku hamiyayaana waa qaar guul daraystay waxa weeyaan maanta xamar qof waliba gidaar buu ku dhuumanayaa in qofka ag maraya isku qarxiyaa buu ka baqaya ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu dhibaatada ka saaro dhalinyarada ku guulaystay imtixaanka ee gobolka Maroodijeex waxa weeyaan inamadu waxa weeyaan 147 habluhuna waxa weeyaan 70 naafadu waa 5% iyagu ma galayaan tababarka hablaha iyo naafadu ardaydan ku guuleysatay barnaamijka shaqo qaran ayaa dhamaantood ka kooban 217 isugu jira wiilal iyo gabdho. Cabdiraxmaan Ibraahim dalka TV Hargeysa.